awaysi wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararkeena caawa waxa ugu waaweyn dawladda Kenya ayaa qorsheysanaysa inay dadka ka rarto xaafadda isku raranka ah ee Afrika ugu weyn si loo dhaxmariyo waddo isku xidha daafaha Nairobi xogta faraha iyo indhaha ayaa la kaydin doonaa si loo diiwaan geliyo ciidamada Soomaaliya sidaasina waxa sheegay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya caawana waxaanu booqannay dukaan ku yaala dalka Belgiumka oo alaabtu iibinayo qaarkeed saqafkiisa uu ku beero waa hab cusub oo wax soo saarka cunnada ah isniinta soo socotaa waxay kaga egtahay xilliga dawladda Kenya u qabatay in dadka saboolka ah ee ku nool xaafadda isku raranta ah ee Afrika ugu weyn ee Kibera ay halkaasi ka xidhxidhaan alaabtooda maamulka ayaa doonaya inay waddo weyn oo isku xidha daafaha Nairobi laga dhisa halkaasi laakiin waxa ay hooy u tahay kumanaan qof oo aan heli kareynin meel kale oo ay ku noolaadaan Suhayba Badqas ayaa warka nooga soo dirtay Nairobi halkani waa xudunta wadada uu muranka ka taagan yahay waxaana la filayaa in lagu yareeyo saxmadda ka jirta galbeedka magaalada Nairobi oo ay isku xirto labada dhinac ee magaalada waxay dhex martaa xaafadan isku raranka ah oo ay degan yihiin dadka saboolka ah qoysas badanna waxa loo qabtay muddo yar inay uga guuraan wadada oo ay ku yaalaan guryo iyo ganacsiyo kala duwan ilaa isniinta soo socota ayay hadda haystaan dadkan saboolka ah ee Kibera iskuulo ayaa ka mid ah meelaha ay saameyn doonto burburinta walwalkana waxa uu yahay halka ay caruurtan aadi doonaan waxaan haynaa caruur waalidiintooda aysan awoodin inay bixiyaan qarashka marka waa 21 cunug ma garanayno halkay ay aadayaan marka meeshaan la dumiyo kadib midaas ayaan ka walwalaynaa goobaha ay saameyn doonto waxaa ka mid ah xarumo bulshada lagu tababaro sida meeshan oo kuwa badan oo sabool ah ay ku bartaan xirfado kala duwan bulshada xaafadan isku raranka ah waxa ay sheegayaan in aysan diidaynin in ay halkan ka guuraan balse waxa ay doonayaan in si wanaagsan loola dhaqmo go'aanadana laga qayb geliyo dhammaanteen waan ogeyn in kararidan ay imaanayso laakiin bulshada ayaa aaday maxkamad si ay uga hortagaan mashruuca waxaana dareemaynaa in bulshada aan si fiican looga qayb gelinin go'aamada dhismaha waddadan gaarka ah iyo sida dib u dejin loogu samaynayo dadka uu saameynayo ama magdhow ay u heli karaan laakiin dawladda Kenya ayaa diiday in magdhow la siiyo qofkii laga dumiyo guri ama meel uu ku ganacsanayo inta badan dadka xaafadan degan ma haystaan warqado ama sabarloogooyin muujinaya in ay dhulka leeyihiin Kibera ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay ka dhacaan rabshadaha ugu badan ee Nairobi waxaana dhici karta in arrintan ay xiisad ka dhalato marka la gaaro waqtiga loo qabtay in ay ku guuraan Suhayba Badqas BBC Nairobi dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday diiwaangelinta ciidankeeda iyadoo xogta faraha iyo indhaha la qaadayo wadamada Soomaaliya caawiya ayaa diiwaangelinta shuruud kaga dhigay mucaawinada wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa BBC-da u sheegay in dhamaadka sanadkan la ogaan doono tirada rasmiga ah ee ciidanka diiwaangelinta hore shaki badan baa ka yimi hadday waxay noo diiwaangelsan yihiin oo markaad kaadh waxaad arkaysaa iminka waxyaalaha soo baxaya sida lanoo sheegayo kaadh baad arkaysaa 3-4 qof haystaan oo number keliya laakiin walba sawirkiisa ku dhagan yahay taasina meesha ka baxdaan rabnaa kaadhadh yaalla baa jiro aan ciidama haysan oo aan jirinba kaadhadh aan qorraynba baa jiro dad haystaan marka waxyaalo badan oo isku murugsan ayaa jiro la doonaya in la tafatiro oo la hagaajiyo oo ciidan rasmi ah oo maanta haddii la yidhaha ciidanka heblaayaha loo yeedho waa imisa waa kunkiina isu taagan marabna militariga ugu dhib badan saa sheegtay sababtuna waxay tahay way kala baahsan yihiin meelo kala baahsan oo kala fog bay joogaan waxaan ku bilownay ciidanka halkan degan Muqdisho 5 iyo 200 waa inta maanta aan kula hadlayo agagaarkii magaalada ayaa tirakoobkoodii lagu jiraa oo loo mareynay ilaa 2,000 yihiin ilaa imika ilaa 1,000 la sameeyay baan u maleynayaa
marka tan la soo dhameeyana waxa loo galiyaa marka in regionada loo gudbo marka isku soo wada duub waxa loo baahan yahay sanadkan intaan u dhamaan inaan askari wal oo ciidanaba aan numberkiisa iyo wixiisa naqaano waan cid kale falsify garay karin madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay Jarmalku inuu gebi ahaanba Ruushku u taliyo isagoo sheegay in 70% ay ku tirsan yihiin saliidda ama batroolka laga soo iibsado Ruushka madaxweyne Trump ayaa hadaladan yiri ka hor shirka NATO ee ka dhacaya Brussels waxaana uu dawladaha Yurub ku eedeeyay inaanay bixin lacag ku filan gaashaanbuurta NATO Aisha Afrax ayaa ka waramaysa shirka NATO waa casho madaxweynayaal oo ka dhacaysa Brussels oo aanay waqti sheeko ka mid ahayn Donald Trump oo ay ku adag tahay inuu Yurub cagta soo dhigo ayaa soo degay wuxuuna ka hor shirka baahiyay muuqaal uu fursad uga raadsanayo bulshada isagoo Jarmalka ku eedeeyay xagal daacinta NATO waa murugo inuu Jarmalku la galo Ruushka heshiis weyn oo saliidda iyo gaaska ah annagana nalaga filayo inaan ka ilaalino Ruushka iyadoo Jarmalkuna uu balaayiin dollar sanadkii siinayo Ruushka miiskan dushiisa madaxa NATO Jens Stoltenberg wuxuu u muuqdaa inuu doorbiday inuusan jawaabin iyadoo madaxweyne Trump uu sii fogaanayo Jarmalka gabi ahaan waxa xukuma Ruushka maxaa yeelay quwadooda tamarta 60% ilaa 70% Ruushka ay ka timaadaa waxaadna leedahay taasi waa quman tahay waxaan qabaa in ay aad ugu xun tahay NATO inaysan dhicin ayay ahayd waana intaas Jarmalka lagala hadlaa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel markii ay soo gaartay xarunta NATO waxay diiday inay si toos ah uga jawaabto eedeynta iyadoo sheegtay in Jarmalku uu xor u yahay go'aamadiisa kulanka NATO si dhib ah ayuu ku bilowday waxaanay u muuqataa in 28 xubnood ay ka hadlayaan awood iyo u midoobidda halista ay sheegayaan inay kaga imanayso Ruushka Trump wuxuu sheegayaa in taasi ay qiimo leedahay wuxuuna Jarmalka iyo dalalka kale ku eedeeyay inaysan dhaqaalaha dhankooda bixinin si gaar ah diblomaasiyiinta Yurub waxay halkan uga hadlayaan dhaawaca xadidan ee wajiga dhaleecaynta Mareykanka ee aan qarsoonayn hase yeeshee NATO waxa ay riwaayadan u tahay inay dalal badan soo jiitaan si ay u helaan maalgashi xitaa hadday u muuqdaan in ay si xun u wajahayaan siyaasadda faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga bbc.com/somali adigoo ka galaya moobilkaaga bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta tafaasiil dheeraad ayaa ka soo baxaysa qaabkii la yaabka lahaa ee dhamadii yareeraa ee reer Thailand iyo tababarahoodii looga soo badbaadiyey godkii biyuhu ugu galeen waxaa la sheegay in dhammaantood la soo suuxiyey si aanay u baqin jidka dheer ee la soo marinayay waxaana soo xambaaray meelaha qaar quusayaashii dhammaantood way caafimaad qabaan iminka ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay kadib markii weerar ka dhacay Jalalabad bariga Afghanistan mas'uuliyiinta magaaladaas ayaa sheegay in kooxu soo weerartay xarunta waxbarashada magaalada salaasada ayaa waxa kale halkaas ka dhacay weeraro miidaamo ah waxaa sheegtay kooxda dawladda islaamiga ah sheegata maamulka Trump ayaa sheegay in 27 carruur aanay la midoobi doonin qoysaskooda sida lagu sheegay qoraal maxkamadeed 12 carruur aabayaashoodii hooyooyinkood ayaa la masaafuriyeyba mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in arrimo xagga farsamada ay caqabadeynayaan in carruurta iyo waalidkood la isu keeno saynisyahano British ah ayaa baadhis ku dhex sameynaya diyaarad dhex maraysa qiiqa keen gubanaysa si ay u ogaadaan bal waxa ay uga dhigan tahay hawada aynu neefsano xilliyada kulaylaha ayaa adkeeyay in la damiyo haddaba 3 dab oo waaweyn oo ka holcaya waqooyiga England Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya in ka badan 2 toddobaad kadib markii uu dabka England bilowday weli hoos ayuu ka sii gubanayaa saynisyahanadu waxa ay sheegayaan in xilliga abaaraha ee UK iyo Yurub ay kacaan dababka kaymaha sida daraaddeedna waxa ay cilmi baarayaasha tijaabo ka qaadayaan hawada qiiqa leh diyaaradan gudaheeda ayay ku baarayaan si ay u ogaadaan waxa ay taasi kaga dhigan tahay hawada aan neefsano tani waa diyaarad rakaab oo la bedelay ku dhawaad 100 kursi ayay lahayd waan ka bixinay waxaana lagu bedelay qalabkan si aan u baarno walxaha hawada ku jira deegaankan oo dhan waxaa baabi'iyey 2 dab oo waaweyn oo weli ka gubanaya waqooyiga England waa dhacdooyinka ay shaqaalaha dabdamiska ku tilmaameen kuwii ugu xumaa ee abid la arko
xogta tooska ayaan ka eegnaa diyaaradda si aan u ogaano marka aan qiiqa dhex marayno markaan ogaano inaan qiiqa ku dhex jirno ayaan tijaabo aan bannaanka diyaaradda ka soo qaadanay baaris ku samaynaa qalabka diyaaraddan gudaheeda ku jiro ayaa muujinaya kiimikada qiiqa oo leh noocyada gaaska iyo waxyaabaha hawada wasaqeeya marka dhulka lagu soo laabto kooxda waxa ay ku shaqaynayaan kiimikada saxda ah ee ku jirta iyo sida ay u saamayso neefsigeena muddo ayay nagu qaadanaysaa inaan fahanno tijaabooyinka aan soo qaadnay oo aan baarista kula laabanayno caadi ma ahan UK badi kama dhacaan sidaa daraaddeed waa inoo muhiim inaan fahanno waxa ku jira wasaqowga hawada ayay kordhiyaan marka ay magaalooyinka dul marayaan haddii noocyada dabkan ay badi dhacaan isbeddelka cimilada waxaan u baahannahay inaan fahanno waxa laga soo bixiyey iyo saamaynta ay taas ku leedahay deegaanka iyo sida mustaqbalkoodu noqonayo duulimaadkan waxa uu qayb ka yahay cilmi baarista guud oo lagu samaynayo wasaqowga hawada maanta waxay soo heleen tusaalooyin ugu dambayn daboolka ka qaadaya waxa dhabtii ku dhibcaya magaalooyinkeena caawiyo wararka ciyaarahana caawa koobkii adduunka ayaa laysgelaya waa ogtiin ingiriiska iyo Croatia ayaa loo kala baxaya goordhow oo haddana waxaa sii sugayo kasii daranba Faransiiska oo finalka taagan waa markii ugu horeysay ee Ingiriisku muddo 28 sanadooda halka soo gaadho hadday halka dhaafaanna waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee final taabtaan tan iyo 1966 Faransiiska ayaa iyagu taagan finalka saynu sheegnay oo soo jiiday Belgiumka shalay toole Manchester City ayaa la soo wareegay weeraryahanka baasha ka ciyaara Riyad Mahrez oo ay Leicester City ka siisteen $80 milyan wuxuu saxeexay heshiis 5 sano ah waana ciyaartooygii ugu horeeyay ee ay la soo wareegaan tan iyo markay ku guuleysteen Premier League Cristiano Ronaldo xiddigii Real Madrid ayaa isna u diga rogtay kooxda Talyaaniga ah ee Juventus qiimaha lagu kala weydaarsaday ciyaartooygana waxa weeye $132 milyan balimkan aynu eegno hab cusub oo wax soo saarka cuntada ah oo xaggii kaleba loo rogay dukaan weyn ama supermarket Belgiumka ku yaala ayaaba cuntada qaarkeed saqafka ka soo saaray oo ka beeraya taasina waxay keentay in macaamiil badan ay la dhacaan oo ay cuntadaasi iibsadaanba Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya saqafka kore ayaa beer laga dhigay dukaankan ku yaala Brussels dusha sare ayuu beer ku leeyahay beertan magaalada ku taala waxay soo saartaa qudaar iyo miro kala duwan iyadoon sunta cayaankana la adeegsanayn goysmadeedana waxba kuma baxayaan sideedda aroornimo ayaa dalagga la gooyaa saacad kadibna waxaa la dhigaa dukaanka macaamiishu way og yihiin cusaybkeeda waxay xitaa inoo sheegaan inay maalin ama 2 maalin dheeri ah ay ku sii hayn karaan firinjeerka waa taxano gaaban biyaha roobka oo la shaandheeyey qalabka qorraxda dabka ka dhaliya iyo kulka dukaankan ayay beerta isticmaashaa si ay u soo saarto qudaar iyo miro joogto ah aad ayaan uga taxadarnaa miraha qudaarta iyo alaabaha aan iibsanno dhabtii waxaan doonaynaa inaan ogaanno halka ay ka yimaadaan waxaan filayaa dadka doonaya inay meelaha agtooda wax ka iibsadaan suuragal uma ahayn marka dadkaasi waa u wanaagsan tahay beeraha laga sameeyo dusha sare ee guryaha waxa ay leeyihiin culayskooda koox beerayaqaan ah waa in ay ka shaqeeyaan meel culayska la saari karo uu xadidan yahay dalagga saqafka korena lama mid aha kan beeraha dhulka way dhici kartaa in aad noo saameeyaan waxyaabahan bacriminta amaba cayayaanka yaryaray taasoo keenaysa inaananu isku halayn karaynin dabeecadda nagu xeeran marka waxaanu doonayna inaanu samayno meel yaroo jasiirada oo dee laakiin magaaladiina ku dhex taallo oo kale oo wax soo saarta haddii uu mashruucan hirgalo waxa ay mas'uuliyiinta dukaanka sheegayaan in si degdeg ah loo arki doono saqafka dukaamo kale oo beero leh ugu dambayntiina caawa waxaan idinkaga tegaya qoys Faransiisa ayaa noqday reerkii ugu horeeyay gurigoodii u guura lagu nashqadeeyay daabacaadda la yiraahdo 3D-ga guri 4 qol ah 54 saacadood ayaa lagu daabacay waxaana la ogaaday inuu ka raqiiqsan yahay guryaha sida shamiitada ama sibidhka ama jaajuurka lagu dhiso 20% waaba gurigaaga daabaco qof walba wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbc.com/somali intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waa mahadsantihiin nabadgelyo
Thank you.